taas laftirkeeda guddiga xuduudaha waxaan kula talin lahaa dadka Soomaaliyeed sida ay hadda u degan yihiin dib kuma qabaan soodimaha iyo daaqsimahana waa la kala yaqaanaa iyadana aad looga fiirsado qodobka 59aad oo ka hadlaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha horta soodimaha in laga daayo ku talin lahaa oo laga dhigo xuduudaha oo loo daayo 15 xubnoodna in laga badiyaan ku talin lahaa maxaa yeelay guddiga doorashooyinka 15 xubnood kuma filaan taasaan aragtideedu arkaa qodobka 60aad farqadiisa B waxaa ku qoran meel walba inuu leeyahay qofka shaqada la siinayo inuu leeyahay anshax iyo sumcad wanaagsan sidee lagu ogaan karaa anshax iyo sumcadda qofka uu leeyahay qofka ma gurigiisaad kula nooshahay muxuu ahaa ma faamil baatiyiin miyaad la shaqaysay meel walba waxaa kusoo qorteen anshax iyo sumcad wanaagsan halkaa waa inaad ka dhigtaan inuu fiyooyaho maskaxiyan u fiyooyaho horta ku dartaan meel kasta waxaan ku arkaa qodobkan C isla qodobka 60aad farqada C qof kasta oo ka haya xil dowladeed hay'adaha dowladeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed xilliga magacaabista ama 6 bilood oo ka horeysay meesha waxaa ku qoran qof kasta oo uu ka mamnuucay xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofka xeerka jamhuuriyadda uu ka mamnuucay shaqadana waa inaad noo soo cadeysaan xeerarka mamnuucay iyo meesha uu ku mamnuucay halkaa waxaan ka hadlayaa farqada 61aad oo kusoo dhammaynayo muddada xilhaynta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimuhu waa 6 sano oo hal mar aan dib u cusboonaysiin lahayn meeshaan qodob cusub aa kusoo qorteen faallaad kusoo qorteen guddiga waxaan ka codsanayaa intay soo istaagaan dad badan oo aniga lamidan oo ay ka hadli doono ma fahmin 3 sanaa laga qaadayaa 3 baa loo cusboonaysiinayaa dowlad goboleed baa keenaysa meeshaan inaa horta noo sheegtaan oo noo sharaxdaan waan ku rayn lahaa halkaa meel kasta oo ay ku qoran tahay dowlad goboleed kastadana waa inaa caddaysaan dowlad goboleed kasta meelo badan aad kusoo qorteen oo ku xusan kasta intaad dhihi lahaydeen qof kasta oo la dooranayo dowlad goboleedkiisa inaad kusoo daysaanna waan jeclaan lahaa oo aad ku daysaan intaa hal wax ayaa iisii harsan taasoo ah haweenka Soomaaliyeed oon hal meel ku arkay inta qodobkan socday 54aad qodobka 50 iyo waa qodobka 55aad waaye dadka xisbiyada siyaasadeed marka la soo xulanayo in uu siiyo mudnaan gaar ah haweenka Soomaaliyeed annaga mudnaan gaar ah idinku mana haysano mana idinka sugayne 30% haweenka la idinka helo kuraas gaar ah oo haweenka Soomaaliyeed u xiran sida wadamada dariskeena oo xataa haddaydan 30 kootada xiran waa in la helaa women reebkii haweenku lahaa kuraas ay haweenku ku tartamaan oo gooni ugu xiran waa in la helaa intaa waxaan kusoo dhameeyay waxaan kusoo koobay ka hadalkii aan ka hadlaayay qodobada waxaan rabaa marka inaan kusii darsado maadaama cutubkii afraad uu gabagabeeyay waxaan rabaa inaan kaftamo laba reer oo reeraha iyagoo daris ah waxaa la yiri way isa sheegteen dhowr jeer marka reer baa gabay soo tiriyo waxay dhaheen reer hebelka halkaa jooga haddii laga dayn waayo dan baa noqotay geediba ku dara noqonay reer hebele hadda dastuurkii joojiya qodobka afraad ha laga fiirsado waa la dayn waaye marka waxaan ku talinayaa xildhibaanada sharafta leh xildhibaan walba inuu aragtidiisa ka dhiibto waa muhiim xildhibaan oo aragtidaada dastuuriga ah in aad ka dhiibato maanta waxaad haddii aadan aragtidaada ka dhiiban waxaad ka gaabisay shaqadii dastuuriga ahayd iyo matalaadii shacabkaaga aad matalaysay xildhibaanada sharafta leh waa muhiim aragtidiina inaad ka dhiibataan ood ku darsataan waxaan rabaa kale inaan sheego nin walba oo xilka Soomaaliya soo qabta waxaa ka goonayd inuu dastuurka qabyo tiro walaalayaal dastuurkii waa qabyo aan qabyo tirno innaga wax kasta oo aan ka shaqaynaynana diinta islaamka ku salaynayna sababtoo inaga mas'uuliyadeeni ay tahay waa la guuleeyay geedi caana leh waa mahadsantihiin